سائلك qofka sideedaad wuxuuna soo weydiinayaa wuxuu Yurub baan joogaa gaaraan wadanka Norway 34 sanaan jira caruur shan ah baan leeyahay culays buu moodaa inuu ka dareemaya caruurtii shanta ahayd mas'uuliyadoodii iyo korintoodii marka haddaan dhalmadaba iska joojiyo iska daayo ilmo dambaba inaan dhala ma dambi baa waleediintu maxay ka qabtaa طبعا waxana waa diinta xukunka waxana waa talo sax way jirtaa wadamada qurbaha ah caruurtu haday farabataan inay culays badan leedahay oo culays dhaqaale u sanahayne khatar badan oo ku xeeran caruurtii midkii meel iska yar saraba laga qaadanayo caruur baa la qaatay maalin walba aad maqlaysaan طبعا caruurta in la iska qaatana mabda bay leedahay oo ka dambeeya caruurta dawladda iska leh adna wakiil u hayaata haddii wakiil iyo shaqadaadii loo bogi waayana de hantida cidii lahayd iyo caruurtan lahayd baa qaadat sadartii caruurta kharashkooda dhan biilashooda dhan waxooda dhan dawladda bixis sadartii dawladda mas'uulka koobaad ee ilmahan ay raacsan yihiin waa dawladda adiguna dadkaad ugu xigtaayo wakiil baad uga tahay dawladda wakiilka hadii la dhaliilada xilka waa laga wareejiyaa shaqadan waa laga qaadaa shaqalaad ka tahay meesha laakiin meeshina waa la joogaa culays badan bay leedahay caruurtii baa farabaxdo wadan gaala la jooga marka taasoo walaalka waxaan dhihi lahaa dhalinyarada tahay caruurtaada wadanka gaalada ka soo rar sida muuqata caruurtaada waa yaryar yihiin 34 baa jirta 5 caruura waa yaryar yihiin sida muuqata ka soo rar wadan muslimkeen wadankaaga iyo dadkaadii keen meelaad caruurtaadii maamuli karto taladaadana aad ku wadi karto lagula lahayn caruurta gee masalada dhalmadu waa fardu kifaaya ummadda qayb dhashay in la helo waa waajib oo ummadoo dhan lama ogolo waa dambi inay dhalmada joojiyaan laakiin fardu cayn maaha oo qof walba ilmo inuu dhala lagama doonayo saa darteed guurkii ka horreeyey fardu cayn maaha qof walba oo fardu cayn waajiba kuma aha haddaan markaa asbaabtii wujuubkay ku waajibi lahaa aan la helin ilmaha dhalidiisuna waajib cayni ah kuma aha ilmaha qofku iska joojin karaa inuusan dhalinna wuu dooran karaa haddaan caqiide xuni ka dambaynin oo risq loo heli maayo iyo caqaa'idkii xumaa haddayna ka dambaynin wax dhiba ma laha kala fogayn iyo iska joojin midna laakiin waxaa marar la isweydiiyaa nin sidaasoo kale u yar haddii intan wax rabbi ku yimaado adiga inaad dhalmada iska joojiso soo dhibkeeda ma laha wabillahi tawfiiq